waxaana gacmaha u fureenaa walaalaheenna ee Somaliland in ay ku daydaan aabayaashood ee dhaliyay gobonimada aabayaashood midnimada keenay sidii lagu waaray waagi walaaloo dhan waan ka weecdaa walaaloo dhan walaalayaal shantu hay saacdo guddida ama komishanka dhab u heshiisiinta iyo wada hadallada dawladda federaalka Soomaaliya iyo Somaliland guddidaasi in ay shaqadeeda qabsato gogolna la dhigo beesha caalamka iyo cid kasta oo la danaynayo iyo madal kasta oo dhexdhexaad ah oo ay walaalaheen ku qancayaan kuna niyadsan yihiin la isugu tago xalayna lama abuurin shacbigu weyse xogogaali xidigaha lixda waa ogyiin xawaladune war yaa loo xayeysiinaya xabartu waatii waxa xaqiiqo ah ummaddu hadday kala qaybsan tahay oo ay noqoto qayb naga maqan Soomaalida waqooyi ama Somaliland qayb naga maqan noqoto waa wax ka maqan xaliimkan ku dhaartay xaliimka bar halkan maanta bari eeg xaliimkan ku dhaartay iyo alle xaakimka ahaaye iska daa xiriir ugu dara iyo xuluf wadaagooda hadalkan xaqoodii u gartaaban ka xumadoodaan dalkii waa la wada yahay haddii la wada jirayna lagu wada jiro sifo sharci iyo dastuuri ku dhisan oo la wada hadlo qofka aragtida qabaana uu ogolaado qofka aragtida ka soo horjeeda qaba ee ka duwan in uu dood furo oo xiwaar furo oo yiraahdo walaalayaalow hadduu taagan yahay tani in dhiqi mayso kumana sii socon karno 30 sanaan marayna maxaa xal ah dadka inay xusuustii aqligu xaaxiyo dhimatay oo xiskii wax kala soo cijira uunka ka xumaaday waxba yay ragii xeerin iyo xoolihii lumay dadkan xaafadii wada burburay oo wali la hayn taabin guryo aan xaqiisa la dadin xalay ka soo toosay ee saaka xamar dooriya muxuu ku xiisay aragtida ah midnimada iyo kala taga waa fikir dadka Somaliland ka soo jeeda ay ku kala duwan yihiin laakiin fikirkaasi oo 30 sanadood ugu dambeeyayba ku dhawaad ilaa 19 laga bilaabo aragti dadna qabaan dadka qaarkiina ay qabaan haddii si adeeli weydo maxaa si kala oo ayuu abwaankii lahaa u waacayna maxaa lagu dayi karaa oo kale war 30 sanadood miyaan meeshii u taagnaanayna xoontay dugaa ku arkayaan xoolahan geline xayawaana bahalaha wax cuna lama xaroodaane 30 sano xabaal duul ku jiray meel xabsiya jeela waadiga xuruubay ilaahay ku xamdi mooyaane maxaashiish cabba kuwa halkii dib ugu xiisooday